Leedahay Fartuus Ismaaciil waxaan ku joogay gurigeyga waxaan ka soo baxay 6 subaxnimo bishii Ramadaan 6deedii hadii aan soo baxay adeeg baan soo doontay suuqan ka adeegtay hawsheedii ma dhameystay ka bacdi waxaan u tagay hooyaday oo maxkamadda joogta ma garatay hadii aan u joogay hooyo cabaarid intaan u joogay waxaan la kulannay qaraxaas hooyo xagee joogtay hooyo waxay joogtay maxkamadda walaale waan soo adeegtay hawshooda dhan baan soo dhameystay qof caafimaad aan ahaa ma sha Allah hooyo cabaar goortaan la fadhiyay oo cabaar la sheekaysanayay baa waxaan soo galay gaariga qolada maxkamadda hadii gaariga qolada maxkamadda soo galeen xoogaa baan kursi yar baan ku fadhiyay xoogaa baa cagahaygu dhawaayeen saas aan yar uga durkay bes hadaan kursi macnaha ka durkay dareenkayga macnaha dhugtii baan maqlay walaal dhugtaas aan maqlay macnaha waxba waan kala garan waayay jaa waxaan dareemay ilaa indhahayga waxba ka joogin macnaha adigu dareen waxaan dhugti goortaan maqlaan waxaan dareemay qofinina oo kale ma aragtay halka ruuga marka dhigtay dhagashadii aan dhigtay baan waxaan dareemay inuu dhaawacigu yaa saasaan iri ka bacdi saa aan irina waxaan dareemay dhiig badan ma garatay marka walaal dhibkaas ay soo gaaray bishii 6aad magaalada Boosay ugu soo gaaray qaraxaas aniga hooyaday dhibkaas oo walaal macaan 6aadkayga iga saameeyay macnaha wajigayga burbur badan u geystay oo fara badan burburkaas oo macaan walaal ah macnaha xanuun badan ka dareemayo oo lafahayga dalka gudihiisa walaal waxba leega qaban waayay dhaqaatiirta hadaan la hadlay waxay dhaheen dhakhtar fiican hadaa heshin macnaha oo dibadda ah isha bidixda ah waxa lagu qaban karaa laakiin isha midigta ah walaal jaa markiiba way baxday ma garatay hadda waxa igu daran burburka wajiga xanuun badan baan ka qabaa habeenkii ma seexdo wada xanuun badan jajabkaas oo badan dhacaya oo macnaha iga yimaada ma garatay marka waxaan walaalaha hooyo Soomaaliyeed oo iska danyar ma garatay qoftaas oo iska danyar wax badan aan haysano macnaha magaaladeeda iskaga jidha ma garatay lixdeed ilaa walaal la qabtay ma garatay haddana walaal waxa way dhibka waxaan ku waayay 6aadkayga ma garatay waliba indhu ugu xun yihiin ma garatay waxaan ay hooyo 6 ciyaal dhashay marka 14 jir baa igu weyn ilmo yarna waa igu yariyay 4 bilood jira marka dib badan baan macnaha ilaa horta wax walba keenan laakiin dib badan ayaan walaal macnaha tirsanaya macnaha xagga calooshayda macnaha xagga macnaha qof dawa dareemaysa macnaha ma aragtay dhalinyaro ahaayo meeshu doona mari jiro macnaha dib la soo kormay inkastoo ilaahay wax walba keeno ma garatay hadda waxaan ka codsanayaa walaalahayga muslimiinta qofkii macnaha ilaahay dartii ugu caawin kara walaal ilaahay ugu caawiyaan maadaama oo la yiri macnaha dhibkaaga Soomaaliya gudaheeda wax lagu qaban karo dhaqaatiirta hadii macnaha ay ka waramay indhahayga waxay dhaheen ishaan bidixda ah hadii aad dhakhtar fiican heshid macnaha rajo waa leedahay Fartuune hadda dhaqaatiir xiriir ma la leedahay oo mutaqaanay xaaladaada ma la socdaan wallahi dhaqaatiir waan la leeyahay waayo qolada Turkiga baan la leeyahay ma garatay marka qolada Turkiga macnaha markii wax kale iga way qaabilinaa waxay dhaheen macnaha gabadhaas dib badan baa wajigeeda soo gaaray macnaha burbur fara badan anaga ahaan waxba kama qaban karo laakiin dibadda waa looga qaban karaa qoftaas ma garatay marka walaal waxaan ka rajaynayaa walaalahayga muslimiinta ilaahay dartii ilaahay ugu caawiyaan maadaama aan 6aadkayga waayay haddana aan jeclahay 6aadkayga hadii ilaahay ii qoro ilaan macnaha ku baraaro ma garatay ma jirtaa cid gacan ku siisay tan iyo intii dhibaatada ay soo gaartay wallahi walaalay wax badan ma arag ma garatay macnaha wax taakuleen oo badan macnaha gabadhan walaashay waxaaska iska ka hayaysa laakiin macnaha wax gacmo furan igu soo dhaweeyay walaal ma aan arag haye dawladda iyaga wax gacan ama ka heshay may walaal dawladna waxba kama helin wala hooyaday waxba ka helin oo boos ku xanuunsan wala aniga waxba ka helin ma garatay sidii macnaha ciladu noo soo gaadhay anaga ha noo saameysay baan wali bartayda walaal ku taaganay xaaladda hooyo waa sidee hadda wallahi hooyaday macnaha hadeer waan ka maqanahay macnaha qofta aan macnaha waxaan waxba arkayn laakiin codkeeda marka aan macnaha la hadlo ama aan dareemo dib weyn bay dareemaysaa ma garatay dibkaas oo aad macnaha islaan weyn bay ahayd islaanta weyn oo macnaha wajiifta ma aragtay beer ma garatay saakada waxa la sheegay macnaha gacmihii xataa inay macnaha nabar badan oo xanuun badan ay dareemayso iyaduna ay seexan ma garatay
iyada ma qaraxay dhibaato ka soo gaartay ها قرح دبات بدن بكسو قاعدة ولا بقار كسرة معنا إلى أنت قار كسرة لا دبر كوسيس إلى دبر جبنت إلى لغو هذا ما قرأته قفت سمعنا وهي للدوانة إلى شيء ما قرأته إلى هبي إلى هذا ولا المعنى إلى هبان وضل أنا ما قرأته هذا عقبتها وجبنا يعدل كلنتم حاكم إذا وأنا جهان نفط إذا ولا عليه هرت الآن باكم إذا كودين waxaan dareemayaa macnaha kaar badan oo macnaha intayda ma aragtay labadeedo indhooda macnaha sida duhurkii oo kale adigu xilliga aan isdhaho ma arag seexo kale ma aragtay ilaa aan fadhiyo waan rabaa moogta habeen iyo maalin ilaa aan fadhiyo macnaha baa macnaha rabaa inta aan walaal macaan maxay haydee yar istreemo yar qandho fara badan baa ay qabanaysa kaar badan baa wuxuu iga qabanayaa wajiga oo macnaha burbur ka miya macnaha sidii macnaha wax la faafay ama aragtay qof aragtay qacdaas oo kale ana naqskan dareemaya waa soo boodaya ma garan macnaha mararka qaar kood waxaan ka baqaa sariir baan ku seexdaa dadku iska lan yar marmar bay iska seexdaan in aan jawaban ka baqaa baba islaaliyaaba ila aan jaba macnaha ma aragtay baan walaal ka baqaa macnaha qofku sidiisa hore waxa dareemaysaa ma ogtay waxa arkay sidaadii hore daahan jiday macnaha waxa dareemaysaa sidaadii la tahay macnaha waa soo boodaya ma garatay aadiya marka walaal dhibkaas aan dareemaa ma garatay